wahay waana heesaha hiiladii laga helo iyo hiiraan Johor isku hay waxay kamid ahayd shirib markaasi uu soo duubay madaxweynaha maamulka Hirshabelle dad fara badan oo marka waxaan arkay aad iyo aad uga xumaa ama maaragtay hadalkaasi siyaabo kale u kala qaaday oo dadna ay markaasi u qaadeen in uu kula hadlaayo beesha xawaadle uu leeyahay wahay waana heesaha marka waxaan rabaa arrintaasi inaan siday tahay markaasi u falanqeeyo dad badan oo markaasi runta moogna runta u sheego horta Cali Guudlaawe ka hor maamulka Hirshabelle wuxuu ahaa maamul aanan jirin oo dhicis ah oo aanan korin oo maamulada ka jiro markaasi Soomaaliya aan waxba la qaybsanin laakiin markii uu yimid Hirshabelle waxaa la helay maamul hufan oo hagaagsan oo maaragtay la qaaday isbaarooyinka magaalada Jowhar ilaa maaragtay beledweyne yiilay waxaa laga shaqeeyay nabad way jiraan dad fara badan oo markaasi hiiraan ka soo jeedo oo mataqaanaa dabeel ahaan xawaadle laakiin dhaliilsan maamulka jiro siyaasadna sideeda waa inay yeelataa dhaliil iyo dad taageersan mucaarad iyo maxaafadba laakiin dadka ka soo horjeedo in mataqaanaa Hirshabelle ay noqoto maamul dhisan runta loo sheegayaa waana heesaha hana leeyahay hadii dadka qaar ay u qaataan macnaha maaragtay abgaal inay maaragtay abgaal kala siinayaan sababtoo meesha waxa ku jirto hiiladii waa laga helay macnaha codda hiilisana waa la yaqaanaa markii ay mataqaanaa abgaalnimo joogto abgaalnimadana wax ceeba ama ay ma ahan in mataqaanaa dadkaaga aad garab iyo gaashaan u noqotidna waa jiritaankaaga kamid tahay maadaama adiga aad tahay nin dhashay waa tahay nin dhashay marka qof walbo abgaal waa inay isku soo duubtaa maaragtay urudkeena maaragtay walaalkeena madaxweynaheena maamulka Hirshabelle shirkiisa waana heesaha hiiladii laga helay hiiraan iyo Johor isku hay waana sidee tahay hiiraan iyo Johor waana isku heesid waa in macnaha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Hirshabelle si isku mid madaxweyne u maamushid anigana intaas waxaan ku darsahaa Guudlaawe ka hor maamulka Hirshabelle ma uusan ahayn maamul macnaha maaragtay qiimaha hadda uu leeyahay saddexba ma lahayn marka saddex walxaato ma agu taal saddex walxaato ma agu taal Guudlaawe ka hor ma lahayn wada la maro ma lahayn maamul hagaagsan ma lahayn madaxtooyo raysa ma lahayn Cali Guudlaawe ka hor waana la ogyahay marka ha loo daayo Cali Guudlaawe dadka ka xunna way xumaan karaan laakiin dadkaasna macnaha hal wanaajiyo oo inta loo yeero la fariisiyo la qadaysiyo la yiraahdo maamulkiina waa dhinac ka raaca Soomaalinimada waa laga soo tagay cid walba nafta iyo qabiilka ay maraysaa marka Soomaalinimada iyo qabiilka waa isku dhinac socdaan wadanka waa 4.5 marka nin walba dadkiisa waa inuu taageeraa aniga oo in abgaala yaraanka abgaala oo waxaan aad iyo aad u taageersanahay Cali Guudlaawe Xuseen waxaa leeyahay 5 sano soo socoto waa inaad joogtaa xilka waxaan kaloo halkan kula hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Soomaaliyeed taa waa sax laakiin dhulkaaga iyo dadkaaga waana isku haysaa maadaama adiga aad tahay madaxweyne ma ahan inaad dhahdaan abgaalaha madaxweynaha codkala waxan noqoto caasimada waa Jowhar madaxweynuhuna waa Cali Guudlaawe mana ka qaadi kartid adigoo ku fikiraayo in adiga aad tahay nin abgaal madaxweyne abgaalnimada anaga marka xaq waxa u leenayaan ku weyneen doorasho gashay waa heli lahayd waana way lahayd nasiibkaaga ku heshay maadaama markaas madaxweynihii jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka ay markaas mucaarad badan ku ahaayeen
ma ahan in dadka laga jeclaa, laakiin ninkaas maadaama laga soo horjeeday oo Sacuud Cabdullaahi Deni iyo dad badan oo markaasi go-aan ku gaareen in ay ninkaas markaasi ridaan, sabab loo ridaba maadaama aan nasiibkaaga ku timid, nasiibkaaga uusan noqonin nasiib aa kula soo laabato dadkaagi. Hal Guudlaabe waxaa meesha geeyey madaxweynihii kaa horeeyey, raginimadiisa dadaalkiisuuna ku joogay, haddana madaxweyne macnaha dee wuxuu diyaar u yahay inuu doorasho qabto, doorashadaasina wuxuu xaq ugu helo leeyahay. marka abgaalnimo ha uga heeladan. intaan kulmi doono muuqaalkan mid lamid waxaa idin leeyahay midnimada abgaal waa muqadas, abgaalnimada ha waarto.